kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkiina cusub. Muuqaalkiina maanta wuxuu ku saabsan yahay mashaajid la dhacayo. Waa iskala soo tagay in la dhaco dad aan banaan la isku dhaco. Maanta waxay maraysaa in la dhaco mashaajidka Ilaahay daawaday. Muuqaalkiina inta maanta gudagelin waxaan ku codsanayaa inay inoo sartaan subscribe. muuqaalkiina maanta wuxuu ku saabsan yahay ninkaana ujeedid wuxuu soo galay mashaajidkan asigoo inuu dhaco mashaajidka. waa waqtiga mashaajidka firaaqada uu yahay, waxaas dhigi karaa barqadii, laakiin ninkan wuxuu soo galay mashaajidka inuu ku cibaadaysto maan wuxuu rabaa inuu dhaco. wuxuuna weliba dhacayaa tabarucaadda ama sanduuq yar ee lagu shuba lacagta. qof walba oo muslim ah markuu mashaajidka soo galo mashaajidka wax yar oo ku shublahay wixii dadka loogu qabanaya muslimiin ama mashaajidka lagu celiyeyba wixii lagu tabaruci lahay mashaajidka ayuu rabaa inuu dhaco. qalab u doontay oo ku furo ugu furmi waayey wuxuu rabaa inuu furto kabacdina wixii ku jiro oo kala baxo. subxaanallahi alcadiim. daawada muuqaalo badan oo mashaajid la dhacayana waa soo gelshay, waa soo daawa kartaa dib muuqaalka oo soo daawa kartaa iyo tuugooyin badan oo dhacaya. hadda ninkan wixiisa waa soo qaatay sanduuqi kulli waa furanaya. inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun. kulli waa dareemaysaa inuu mashaajidka waqti firaaqa ah, waqti aan dadka joogin. ninkan soo jeedin waxba reebin oo jeedin wuxuu qaado karo wuu qaaday. kulli maanta maalin la aynu keenin doonaa, balse waxaanoo kale waa waxyaabaha aqoonsigaankaas dhigi kara markuu soo dhow yahay. kulli nin oo mashaajid saaqad ka soo gashay waa dareemi kartaan. ugu dambeyn oo iskaga baxaya goobta oona ka tagaya. muuqaalkan kale ninkan kanayo salaada wayn umad safay ku jirtaa, laakiin asiga gadaal ku dukan uu bacdaas gadaal taal ma jeedaa asigaas kale. waa dareemaysiin waqtiga salaada lagu jiro, balse asiga gadaal ku dukan waa sunnaysanaya macna dadka iskaga boojeeyo waxa gadaashiisa yaalo dhan waa koobo u jeedin wax ku safan goob gadaal. bacdaasna asaas kale shaqadiisa wata salaadiisa adii toon waa dhaafay ilaa dadka ka kala yarahayaan adii waa fahmi kartiin dug shaqadiisa. marka bacdaas salaada laga baxaa bacdi al-aada iyada shaqada yaa la qabsaa. marka wixii qabal lagu ridi karaa lagu ridaa, wixii qabal meel hore loo fiirsaday marna la isgeli maaba waxaan hore loo sii cabir sartaadi waana la qaadanayaa goobtan waa ka tagayaa. subxaanallahi alcadiim. fiidiyoon kalena waxaa waaye nimankan dhalinyarada waa laba nin waxay joogaan mashaajidka aygane. mashaajidka qolkaas marka waxaa waa qol yar oo waadi mashaajidka uu leeyahay. marka waa galeen maaqan waxay ka soo baari karaan way ka soo barteen may ka soo waayeen maaqan wala dhalinyaradan kulley waa dareemi kartaa. ninkan oo fanaanad madow oo dharka madowga wata siine wuxuu sameyn doonaa ugu daranbo hada qolkaas wixii laga soo baari karaa waa laga soo baarinaya waana ka soo baxayaan ade mashaajidka waa iska faaruqa siine oo baxayaan mujida midaas soo laabanaya. marka kii dharka madowga waa kan soo laabay wuxuu soo laabtay mikrofonka inuu xado oo macnaha lagu aadimayo salaada lagu waayay dadka lagu waayay salaada lagu dukanayay. subxaanallah subxaanallah. adi waa qaadanaya ugu dambeyn wuuna baxayaan. fiidiyoan kale inay la fahantaan rabaa waa mashaajid qaybtan waa kobaxadow. ninkan inta taagan ee soo sokeeyo tuug maahin, laakiin ninkaas gadaale waa calaamad guduudaas saaranneed waa tuuga. ninkan koba fiican oo wataa oo boorsada wata waa arday kulley ama nin shaqa ka yimaado waaye maahan tuug. kobaha meeshoo dhiganaya uu ka tegaya, laakiin nin meeshaas cabir u saaran yahay kobahan shiishada meel kale ma saarno. sidii loo soo socdo waa la gudbaa kobaha cabira la saartaba iyo koba kale oo badan kobahan keliya xataa maahan. waa la soo laabanayaa marka in laga dareemin dada meesha marmaroodo waa la gudbaa mar labaad. ninka dhalinyarada gudaha galay waxa uu moogo ay iska xirway kobiisa meeshaan ay yeelin koba kulley koba qaaliyo wata si loo marmaro ujeeda. waa kana ninka waa soo laabaya tani ugu dambeyn. markuu qof mareeso oo waayo meesha wuxuu qabsanaya kobihiin woona qaadanaya. marka meel ku soo ridaya haddana wuu soo laabanaya koba kale oo cabir u sarnaayeen ala qaadanaya mujida waa isfiifish waa la qaada. haddana hal loo qaado maana kobaha iskama qaadi karo. saddexaad oo soo laabtay ujeedin qofa imaad mujida waa isboojeena. marka ninka marka la marko intuu aruuriyo meel ku shubi kariyo halaala loo qaada macnaha qofaas ii gelis oo baxaysan iska ilaaliyo waa dadka adina shaqad oo tuugan daga waaye oo isboojiyay waa isxog xogiyay qofka markuu xarooday oo arkay kubiisa laga wataabo kuba caadi loo gasta markaan waa la baxano. nin oday waa ninkan ma yiro da'wa moota marka meeshan u talwaa ka madaxiisa moota meeshan u talqof meeshan isku boojiyay mootada aan wadanaa marka
woona baxaya muuqaalkan kale aa ujeedid daawade ragga mootada wataa ujeedida sii socdo waa tuugo waa dareemi kartaan waa kuwaan haddana meeshaasi taagan yihiin mujeda marka ninkii la soo dejina waa kada marka raggan meeshaan la dhaco waa mashaajid xagga mootada lagu baakimi geeskaas lagu baakimi mootadan kan mujeda ragga ka soo dega waa kan mujeda waa mootadan kan ninka meesha iska baakimi koba meesha ku siiba marka ninkan dhammaan wax koo meeshan yaal ugu nuxurka badan waa la qaada rabaa ragga xagga ku baakimiyiin ninkii wax masaajidka loo iska dhigay meeshaanu ku tukanayaa laakiin shaqadooda raggan waxaa waaye inay dhacaan mashaajidka koba uu qurxoon oo dhan walaahi tacaala nimankan haddii wax aruursan karaan wax aruursanayaan wayna qaado doonaan daawade muuqaalkiina intaas ugu yahay muuqaalkan muuqaalkiisa kalintaa kulmeen waxayna leeyahay boqol subscribe